السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان halka kani ku qaadanayna cashirkeeni shanaad oo aan ku baranayno qaab muraajaca ama ku celis iyo sharaxaad dheeraad oo aan sharaxeeno 4 cashar oo aan horay u soo dhaafnay oo aan ku baranaynay farqoraalka afka Soomaaliga haddana asagoo naqtiina ama ku celis oo sharaxaad dheeraad ayaan qaadanayna insha Allah. waxaa halkan inoo yaala tusaale laba xarafna uu yahay qa xarafka kaleentana uu yahay qa labadan xaruf inta badan af Soomaaligu aad baa la iskugu qaldaa laakiin waxay asal ahaan ka imaadeen farta Carabiga oo anaga markaan dugsiga noo laga dhigi jiray aan u soo baranay qaab dhawaaqa af Soomaaliga sida qa korkaale oo qadaas laga keenay iyo qaaf korkulama leh oo laga keenay qaadan marka labadan way isku dhawaaq egihiin inta badan laakiin codka meeshuu ka soo kala baxayo ayaa kala duwan marka saan u fahamno qa korkaale qaadaas ayaa laga keenay qaaf korkulama leh qaadan kale ayaa ka imaade sidoo kale waxaa halkan inoo yaala laba xaraf ama laba xarfood oo kala shibane iyo shaqal haddaan ku hormarno dhanka shibanaha la'da markay ay xaraf weyn tahay sidaas ayaa loo qoraa la'da markay xaraf yar tahayna sidaan ayaa loo qoraa marka la'da markay ay xarafka yar tahay waxay u dhowdahay xarafka shaqalka ama dhawaaqa shaqalka xarafkiisa weyn ee i'da sidaas ay iskugu egyihiin marka kala ayaa jirto oo ayadana kor iyo hoos calaamad ku leh waana sidan marka sidaa daraadeed si aad la iskugu maqaldi doono marka af Soomaaliga si fiican u baratid sababtoo i'da weyn mar walbo jumlada ay ka bilaabataa la'da yarna dhaxda ay gashaa isku maqaldi doontaan laakiin farqiga u dhaxeeya ina fahamtaan oo kaliya muhiim intaan ku guda jirno barashada farqoraalka afka Soomaaliga isku xirka xuruufaha si aan uga dhigno erayo kadibna ay u noqdaan jumlooyin insha Allah. waxaa kaloo sidoo kale halkan inoo yaala wax la yiraahdo shaqalo ama shaqal ama dhawaaq meeshaan waxaan ku arkaynaa xuruufihii aan hor u soo baranay ee shaqalada laakiin waxaa kaloo loo yaqaan shaqal gaab waa la yiraahdaa ama shaqal gaaban shaqalo gaaban waa la yiraahdaa markii jamc ahaan laga dhigo ama wadar waxaa kale intoo la dhihi karaa dhawaaq gaaban maadaama waxa afkaaga ka soo baxay uu yahay cod oo a e i o u marka waa dhawaaq shaqal gaaban inta baan dhihi karnaa sidaas si la mid ahoo kaleente waxaa sidoo kale halkan inuu yaalo shaqaladii ama dhawaaqii ayagoo cod dheer ama dhawaaq dheer waxaan dhihi karnaa shaqalo dheer shaqal dheer dhawaaq dheer marka inta baan dhihi karnaa oo a e i o u marka sidaasna waa la dhihi karaa maadaama waxa afkaaga ka soo baxay ay yihiin dhawaaq ama cod sidaas ayaan u sharixi karnaa dhawaaq dheer ayaan dhihi karnaa marka haddaan u fiirino si naqtiina ama ku celis waxaan meeshan noo yaalo xarfaha yaryar iyo xarfaha waaweyn oo aan u qornay qaab dhawaaq gaaban iyo dhawaaq dheer haddaan ku hormarno dhawaaqa gaaban waxa weeyaan waa a e i o u waxaan haddana guda galaynaa dhawaaqa dheer a e i o waxaa muhiim ah inaan si fiican u fahamno xarfaha yaryar sida loo qoraayo maadaama casharada xigo idil aan ku qaadan doono xarfaha yaryar oo kaliya xarfaha waaweyn maskaxda ku hay insha Allah weydiimaan inoogu xigi doono weydiimahaas markaad ka jawaabtid oo cashirkeena lixaad aan ku qaadan doono weydiimahaas markaad ka jawaabtid waxay u muuqataa casharadii la soo dhaafay oo idil
inaad aad iyo aad ula socotid. waxaan sidoo kale qaab naqtiin ama ku celisaan u qaadanaynaa shibanayaashii aan hore usoo baranay oo aan hore ugu soo baranay qaab qoraal far yaryar ah iyo far waaweyn. marka haddana far yaryarta maskaxda ku hay, far waaweynta inaan isticmaalno wax yar ayay noqon doontaa casharadeena xiga. marka farta yaryar qaabka loogu qoraayo maskaxda ku hay. inta badan dadka wax qorana waxay adeegsadaan farta yaryar. marka shibane aan naqtiimino ama aan ku celino mar kale: ba, ba, ta, ta, ja, ja, xa, xa, qa, qa, da, da, ra, ra, sa, sa, sha, sha, dha, dha, ca, ca, ga, ga, fa, fa, qa, qa, ka, ka, la, la, ma, ma, na, na, wa, wa, ha, ha, ya, ya. marka waxaan filayaa inaad si fiican u fahamteen qaabka farqoraalka yaryarka ah iyo farqoraalka waaweynka ah ee dhawaaqyada iyo shibanayaasha. marka casharkeenii shanaad halkan ayuu inoogu egyahay. Waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.